madaxweyne dal degdeg muungaab oo ceebtii ugu weynaa ay dul hoganayso kadib markii uu ka dhawaajiyey madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud inuu yahay dal xaraashe dal lece iyadoo maalmo qura ay ka harsan yihiin xilka qaadista gudoomiyaha gobolka Banaadir ninka lagu magacaabo muungaab Xasan Sheekh Maxamuud oo markaani go'aan qaraar ka qaatay gudoomiyaha gobolka Banaadir warbaahinta isagoo la hadlay ayuu wuxuu leeyahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waa dal lece dal xaraashe waxa markaasi uurka ku jira afka ayaa soo tufo markii la dhahaya been ma aha waxa uu isleeyahay xilkaada ku badbaadso Xasan Sheekh Maxamuud amaan inta uslaha dhiiqa ayuu lagu halagalay waxaan kula wadaagi doonaa markaasi madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo markaasi go'aan halis ah ka gaaray gudoomiyaha gobolka Banaadir qodobada kale waxa qayb ka noqonaya markaasi taliyihii ciidanka asluubta Soomaaliyeed General Shub oo markaasi soo gaaray duleedka magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya fanaaniin markaasi reer Koonfur Galbeed ah iyagoo markaasi waxa ay ku beereen ciidankii taabacsanaa Cabdicaziz Maxamed Xasan lafta gareen ee ku sugnaa duleedka magaalada Baydhabo iyadoo haatan taliyaha birmadka Koonfur Galbeed ninka lagu magacaabo Sandheer oo markaasi gadood ka sameeyay gudaha magaalada Baydhabo waxaan kula wadaagi doonaa markaasi xog ku saabsan taliye Shub oo haatan abaabul ciidan ka wada duleedka magaalada Baydhabo fanaaniintan u goostay ciidanka Koonfur Galbeed ee ku sugan duleedka Baydhabo iyo sidoo kale taliyaha birmadka Koonfur Galbeed oo isagoo haatan gadood ka sameeyay fal lagula kacay beeshiisa oo markaasi uu kula kacay hogaamiyaha cusub ee markaasi dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo waxaan kale kula wadaagi doonaa markaasi xilka qaadista muungaab oo haatan miiska saaran waxaan kula wadaagi doonaa markaasi xog iyo macluumaad ku saabsan arimahaasi balse tabinteena tooska intaan u gudagelin haddii ay tahay markuu ugu horeysan soo boqoto fadlan YouTube-keena subscribe saar oo gobaleelka furo maalmahan barteena YouTube-ka cilad weyn ayaa ka jirta muuqaalada meel dheer ma gaarayaan marka waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalkan like saarto subscribe aad noo saarto sidoo kale muuqaalka aad share gareyso si saaxiibo badan oo qalbi wanaagsan oo adiga kale oo marka muuqaalka u gaaro xogteena gudagelina marka haddii aynu ku hormarno markaasi qodobkeena ugu horeeya ninkii muungaab ahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ceeb iyo fadeexad weyn ayaa dul hoganaysa kadib markii uu hadal ka nixiyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo fagaaraha uga dhawaaqay waxa uu leeyahay Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Soomaaliya waa dal xaraashe waa dal lece iyadoo markaasi xogo maalmihii ugu dambeeyay soo baxay ay warinayeen in ninka lagu magacaabo muungaab xilka qaadistiisu ay miiska saaran tahay markii uu ka war helay in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu xilka ka qaadayo waxa uu islahaa madaxweynaha amaan ugu qabay dal xureeyay dhiiqo isgili marka waxa ka soo fakatay hal mar ayaa waxa ka soo fakatay isagoo dhahay markaasi dal lece marka dhiiqada toos u galay ninka marka Xasan Sheekh Maxamuudna waxa lagu soo waramayaa marka in ninkan go'aan uu ka gaaray waxana haatan xilka qaadistiisu loo sababeynaya sida xogaha iyo sidoo kale macluumaadku ay warinayaan in ninkan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud culusow uu guud ahaanba u gafay sidoo kalena uu ku tilmaamay in uu yahay dal xaraashe iyo sidoo kale dal lece xasanna ayaana haatan lagu soo waramayaa in sababta ugu weyn uu markaan xilka kaga qaadayo muungaab ay tahay muuqaal markaasi si aad ugu faafay baraha bulshada oo markaasi uu ku leeyahay Xasan Sheekh Maxamuud waa qaa'idul wadan waa dal lece waa dal xaraashe isla Xasan Sheekh Maxamuud maalmahan xilka waxa ku sii nagaan kartaa inaad amaanto oo birmadaha aad faaniso baraha bulshada aad saameyn ku yeelato gudoomiyihii gobolka Banaadir ayaa amaan waxa uu kala dalacay Xasan Sheekh Maxamuud ayuu rabay markaa ninka inuu sameeyo balse dhiiqa ayuu lagu halagalay hadalkaasna xilkiisa ayuu ku weynayaa saacadaha soo aadan maalmaha soo aadan sida ay warinayaan xogo markaasi ka soo baxaya xafiiska markaasi madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyadoo haatan markaasi Xasan Sheekh Maxamuud uu bedelkiisuba diyaariyay ninka lagu magacaabo muungaab xogo iyo sidoo kale macluumaad aan helino ayaa waxa ay sheegayaan in gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Madaale ninka lagu bedeli doono maadaama Madaale maalmihii ugu dambeeyay markaasi isaguna markaasi uu ka gadoosanaa hab xukunka JSB waxana haatan markaasi la sheegayaa in ninka lagu magacaabo Madaale mar labaad markaasi dib loogu magacaabi karo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho kadib markii muungaab maalmahan ugu dambeeyay markaasi hadaladiisu
ay bateen sidoo kale markaasi faawuladiisu ay markaasi isa soo tarayaan iyadoo haatan markaasi dhiiqadii ugu weynayd oo markaasi si toos ah uu lugaha u galay. wixii ka soo kordho xilka qaadista Mungab ee saacadaha soo aadan ama maalmaha soo aadan la filayo markaasi in lagu dhawaaqo muuqaaladeena iyo sidoo kale barnaamijyadeena kale ayaad ku daawan doontaan. haddii aynu kusii socono markaasi tabinteena tooska ah qodobada kalena waxaa qayb ka noqonaya General Shub Sodogii lafta gareen haatan marka waxa uu si toos ah u galay duleedka magaalada Baydhabo waxaana halkaasi si diiran ugu soo dhaweeyay ciidankii taabacsanaa Cabdicasiis lafta gareen ee markaasi ugu horeeyo wasiirka amniga koonfur galbeed Xasan Cabdulqaadir iyo sidoo kale afhayeenkii hore ee madaxtooyada ninka lagu magacaabo afhayeenkii hore ee madaxtooyada Cabdicasiis lafta gareen iyo sidoo kale taliyaal markaasi hogaaminaya iyo sidoo kale saraakiil ka tirsan ciidanka markaasi ka amar qaata Cabdicasiis Maxamed Xasan lafta gareen iyo sidoo kale wasiiro hore. waxaana haatan lagu soo waramayaa in duleedka Baydhabo uu durbaba ka bilaabay abaabul xoogan iyo sidoo kale markaasi dhaqdhaqaaq ciidan oo markaasi laga dareemayo duleedka magaalada Baydhabo. waxaana haatan lagu soo waramayaa in ninkan Shub lagu magacaabo markaasi Sodog uu yahay madaxweyne lafta gareen uu haatan markaasi abaabul xoogan ama qabanqaabadii ugu dambeysay oo weerar ku qaadayo magaalada Baydhabo uu ka wado duleedka magaalada Baydhabo. waxaa haatan lagu soo waramayaa in taliye Shub uu xalay gaaray duleedka magaalada Baydhabo waxauna markaasi si toos ah ugu biiray ciidankii taabacsanaa Cabdicasiis Maxamed Xasan lafta gareen hogaamiyihii markaasi dowladdu ay xoog ugu saartay gudaha magaalada Baydhabo iyadoo haatan la soo warinayo fanaaniin markaasi ka tirsanaa koonfur galbeed oo markaasi heeso fara badan u qaaday madaxweynihii hore ee koonfur galbeed Cabdicasiis lafta gareen ay haatan markaasi iyaguna si toos ah ugu biireen markaasi ciidanka ka amar qaata ee Cabdicasiis lafta gareen ee ku sugan duleedka magaalada Baydhabo. miyay iyaguna si toos ah ugu biiri doonaan dagaalka markasta laga fiirin karo in ciidanka lafta gareen ay ku soo qaadaan duleedka magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya. taliyaha birmadka ninkan lagu magacaabo Sandheerana isaguna markaasi waxa uu ka gadooday fal markaasi uu kula kacay hogaamiyaha cusub ee koonfur galbeed ninkan lagu magacaabo Aadan Madoobe. ninkan waxaa lagu soo waramayaa in beeshiisa hagardaamo lagu sameeyay sidoo kalena markaasi dhul ay iyagu leeyihiin laga boobay sidoo kalena golaha wasiirada ee la magacaabay ee koonfur galbeed isagu markaasi beeshiisu aysan waxba ku lahayn. gadoodkaasna ayaa sabab u noqonaya in uu markaasi isaguna si toos ah ugu biiro ciidan ka amar qaata markaasi Cabdicasiis lafta gareen ee ku sugan duleedka magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya. Aadan Madoobe marba kasii dambeyso xaaladda ayaa ku cuslaanayso oo waxaa marba ka dambeysana si toos ah ciidanka lafta gareen ugu biiraya markaasi saraakiil miisaan iyo mug leh ee koonfur galbeed oo Aadan Madoobe hab xukunkiisu diidan iyo sidoo kale sida uu wax u wado. waxa ay haatan go'aansanayaan marka in ay dhankaas iyo markaasi lafta gareen ay ka soo jeestaan si ay markaasi abaabul xoogan ay markaasi ugu soo qaadaan magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya. iyadoo haatan markaasi taliye Shub ninkan waa sidaad ogtiinba waa taliyihii asluubta in badan markaasi waxa uu taageersanaa xukunkii lafta gareen haatan markaasi waxa uu si toos ah u soo gaaray duleedka magaalada Baydhabo. fanaaniin taliye Shub wasiiro taliyaal ayaa maalinta kasii dambeysa waxa ay ku biirayaan ciidanka taabacsan Cabdicasiis lafta gareen. awoodooda waa ay sii xoogeysanaysaa marba kasii dambeysana markaasi saraakiil iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale oo markaasi magac iyo miisaan ku leh koonfur galbeed ayaa waxa ay si toos ah ugu biirayaan ciidanka ka amar qaata markaasi Cabdicasiis lafta gareen ee ku sugan duleedka magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya. Cabdicasiis lafta gareen sidii Baydhabo looga saaray Baydhabo waxa uu markaasi ka wada qalalaaso iyo sidoo kale in uu markaasi doonayo in uu markale dib ugu soo rogaal celiyo magaaladii markaasi xoog looga saaray. isaga ayaana afkiisa ka qeyrtay in maalin uu Baydhabo ku soo laaban doono.